wuxuu go'aansaday inuu si qarsoodi ah u soo duubo xabsi qarsoodi ah oo ay koox saynisyahan ay ku fuliyaan waxyaabo maskaxda bini'aadamku aysan rumaysan karin. waxa gudihiisa ka dhaca waxa kamid ah in dadka qaarkood maskaxda lagaga bedelo oo la ilowsiyo waxyaabo ay hore u soo mareen qaab tijaabo saynis ahaan ah. kadibna nin ayaa go'aansaday runta waxyaabahan inuu ka sal gaaro isaga oo duubaya wax walba oo kala kulmo halkaas. waxa uu ka talaabay shabagii ku wareegsanaa goobta isaga oo sawir soo dhigaya bartiisa Instagram-ka, halka dadkii ku xilnaana ay ka sugayeen waxyaabaha cusub ee halkaasi kala soo wadaagayo. laakiin wax yar kadib waxa si kadiisa u istaagay bostiyadii uu soo baahinayay, ilaa markii dambe postigii u dambeeyay edit lagu sameeyay oo lagu bedelay qoraal raaligelin ah oo u dhignaa sidan: waxaan raaligelin ka bixinayaa ficilkan foosha xun ee aan kula kacay bulshadan gaarka ah. mararka qaar in qaab xushmad darro lagaga talaabo meelaha qaar ma ahan wax lagu qoslo. wax yar kadibna waxa dhacday inuu masaxo dhammaan akoontigiisa Instagram-ka, waxaana la aaminsan yahay inay gacanta ku dhigeen mas'uuliyiinta xabsigaas dadka lagu tijaabiyo hadba tijaabo kasta oo cusub. xabsigan oo ku yaala gobolka California ee Mareykanka ayaa waxa la aaminsan yahay inay dawladdu ka dambayso ficilada ka dhaca gudihiisa oo lagu bartilmaameedsado maxaabiista xabsi daayinka iyo dilka ku xukuman.